qaybaha bulshada deegaanada Guulan Kowsar Nuurdugle iyo masaajidka Cali Guduud oo hoostaga magaalooyinka Cadale iyo Aadan Yabaal ayay isku abaabuleen shacabka inay la dagaalamaan maleeshiyada Al-Shabaab waxaana dagaaladii ugu dambeeyay ay ka dileen maleeshiya badan oo ay horjoogayaal ku jiraan waa kuwan dadka deegaanka oo ka hadlaya sababta ku kaliftay inay dabka qaataan oo ay u babacdhigaan kooxda Al-Shabaab waxaan ugu kalifay inaan la dagaalano ururka Al-Shabaab oo ah dad rayida ku nool degmo Aadan Yabaal tuulo kamid ah oo la yiraahdo Guulane waxaan ugu kalifay 8 sano ayaa wadanku naga kireysnay intaas maalan bixi jirnay waxa ay noola timid kiradii way ka badatay in la bixiyo maal waxay nagu geysay in la yiraahdo dadkiina keena oo caruurtiina gabdhihiina wiilashiina keena in la yiraahdo taasaan ugu kaliftay kirada maxaad ula jeedaa maalkana la ka qaato oo mid tabarucaad ula baxeen oo mid sika ula baxeen sikaatul maal ula baxeen oo mid ay ula baxeen haruubo sikadaas oo masaakiinta la sii karin haday tahay sikaatul fitr iyo haday tahay sikaatul maal lacag tabarucaad oo sanadkii 3 jeer amba 4 jeer ay naga qaataan saasa wadanku nooga kireysnay waxa waaye nimankaas cadawada oo maartay dadka iyo diinta ku maqan nimankii la dirayaan nahay marka waxaan ugu qabtay waxa waaye inaan naftayna la fakaweynay 25 biri xabsi ku jira anigoo gacan ka dhaawacay xireen nimankaas marka loo yaqaano taladii dadbe oo bairibi loo yaqaan 25 biri aan la daaweynay aguru ku xiray maxaa markay kugu soo xireen waxay ugu soo xireen ma garanayo xabada la igu soo rideen la soo weeraray garabka bidaxa la iga dhuftay xabsiga la igu riday 25 biri marka dhimadiida la naga dhaqaajiyo nagu soo urun walaal aniga waxaan jiraa 50 sano jooga sax ayar ma iga cadeyn waxaan haynay jimaada anigoo jimaadaas ay waxay ugu kalifeen inay maalkayga si baabaana ku dhameeyaan oo yiraahdeen gobol waa hadii alla ku ruuxay canshuur ku qaadaan oo gobol sakawaada waa yiraahdeen oo gobol yiraahdeen hadii alla ku ruuxay waa wax walba oo walahan lama maalmood aan kala maqnaanayno hirba toog soo gidinayaan dadadan dilindiisa kan waa ku leeyihiin dhibaatadaas ay nagu haayeen 8 sano 9 sano intaas nagu haayeen intaas ayagoo nagu haayeen maalkayna ku dhamaaday oo maalkayna ku gaaftay iska beera falatay hadana ugu dambeystay anug 8 sano jira nin walba ha keenayeen qoys walba ha keen anug 8 sano jira oo yar aniga waxa ilibtay anugi marka gacanta ka soo qabto ugu cabaaday hadii uu ugu cabaaday anugi waa geey waay inaan qorar raadshi naftiida aan ku huro intaas ay iigaysa marka anugeed arkaysid ee cabaadaay ee hooyadina gacanta ka haysay taahay adiguna intaad aab ii wadaa ile meerkana ma iga tagay asaan iska diin waa orday laba halaad oo meel ii joogtaan hore kala baxa mid qorigiyaan isiri naftaada hadii la gooyo wiilka wataan intaas ay ugu kaliftay waxaan doonaa intii aan ka dhindho amba ilaahay iga dul qaado inaan u taagnaalo waxay codsadeen in lagu gacan siiyo dagaalka tooska ay kula jiraan maleeshiyada Al-Shabaab waxayna qireen in guulo ay ka gaari karaan dagaalka ay ku jiraan si ay ilmahooda uga badbaadiyaan in la marin habaabiyo waxaan nahay urur la yiraahdo Macaawisley waxaan isu abaabulnay iskaayo waxaan rabnaa inaan la dagaalano shabaab waxaan rabnaa inaan wadankayna ka cirib tirno amba anagu ka cirib beelno taas oo laga soo horjeedi karin oo nagu kalifta dagaalka inay iyagu ka cirib tirmaan amba anagu aan ka cirib tirano taasaan go'aansanay waxaan socodsan dawladda Hirshabeelle inay wax noo qabato qaas ahaan gobolka nulku gumaadayo gudihiisa iyada ka talisa gobolka Shabeellaha dawladda dhexo oo Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay na taageerto caalamkuna usuna taageero adduunkuna usoo soo guntado intaasaan codsan lahayn unko ah ururka Macaawisleyda taageero gaashaandhig leh caalam kale waa u baahan karnaa oo dadku waa dad iska shacaba oo urur Macaawisley isku magacaabay laakiin anunku midnaba inta naf uga dambayso iska kama heri doono waa dagaalina inta naf aan wuxuu karno fariiri aan wuxuu karno caalamka iyo dawladda iyo wasaaradda ee gaashaandhigga waxa ka codsanaynaa inay maartay cadawgaas haysta ay garab naga siiyaan kitaabka baanay ka sheegeen kitaab wax ka runtoor maahan maalikay ay awood yeesheen kitaabka waa tuureen bilcaantada tumay ku soo ay timaado ee salaada la soo dira asxuuliyaad la rugta ku soo celi meeshaas 12 saac galabnimo 12 saac oo galabnimo ha timaado ilaa waa biriga imaane waxba la baraha lagu leeyahay ma taqaana waxa aqoon oo soo siyaadaysan lama arko in baan lagu haysta saasaan u arkaynaa dhibaatadana soo kacisay waa saa'id si badan ay saa'id u tahay marka anagu inaan gurbad helno oo garab helno oo ilaahay garabkayna oo galo intaasaan hadii la kula go'aansanay dadkaana waxa isu keenay dhibaato
laga soo hadlo kala duwan laakiin hadda kacdoonkan wuxuu ka dhacay cunug 8 sano jiraad keenay canugina anuu 8 sano jooga in naftaada lagu badbaadiyo diintuna ma qabto xiskuna ma qabi sharciguna ma qabiyo dadkan waxa isu keenay canugaas muluq anu nafteeda ku badbaadamay ana ku dhimaaya haddana inuu ku dhinto waa ka go'an tahay marka dadka unu wadanku waa soo kacnay amba dawladaha caalamka amba samada Soomaaliya amba dadka muslimiina waxaan ka codsaynaa inuu garabkaan istaago ununkuna inaan intaan nool nahay amba cadawgaas alla naga dul qaado dagaalka wadeynaa inta hal naga dambeeyo marka dhibkan dadkan isu keenay intaas oo u bad dhib kuma yara laakiin muhiimadda hadda kacdoonku wuxuu ka dhacay waa cunugaas 8 jirka dhowr gobol ayay hore shacabka ugu kaceen maleeshiyada al-shabaab kadib markii ay u adkeysan waayeen tacadiyada iyo baadda ay ku doonayaan inay xoolahooda ku qaataan Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho